niyo barnaamijkaas waa jira kooxaha caalamka iyo kooxaheena iyo aa ka sameeyey fanaaniinta oo dalkeena yani isbarbardhigaa ku sameeyey iyo waxyaabahay ka sameyn yihiin iyo xiliyaday la waayey iyo xiliyaday ficnaayeen iyo yani isku markaa waxa waaye tusaale yar hadda waxaa ka bilaaway kooxda Manchester United sida ogna horyaal waxa ugu dambeeyey 2013 macallin Ferguson waa ka tagay kadib horyaal ma qaadin FA Cup ha qaado Europa League ha qaado laakiin horyaal EPL waa uga dhamaatay waa marka macallin Ferguson ka tagay kooxdaas waxaa lamid ah kooxda dalkeena ka dhisan ee Elman FC Elman 2013 horyaal ugu dambeeyey bacaadka xilliga lagu dheelayay kadib ha qaado Super League iyo Jana Daoud iyo laakiin horyaal kadib ma qaadin macallin yucalina wuu ka tagay halka Manchester United uu ka tagay macallin Sir Alex Ferguson ayaka macallin yucaliya ka tagay labadaas koox waxaa lamid ah fanaanada weyn ee Farxi Fiska ayadana waa la waayey magaalada ka baxday meeshaas isbarbardhiga ka dhigay Farxi Fiska ee Elman iyo Manchester u asraaceen dadka qaaday dhanka kale waxaa soo aaday kooxda Genyo oo koox soo baxday oo cadar dhigtay oo fiicneed weligeed jirtay laakiin xilligan dambe la dhiso fiicneed oo aad iyo aad u shaqeysay iyo kooxda Arsenal sida og tahay FA Cup-ka aad u qaadaa wixii ka dambeeyey 2004 markay qaadeen ambitic wixii ka dambeeyey FA Cup lay ka qaraabanayso koobon in lagama arkin champion lagama arkin horyaal lagama arkin FA Cup-ka qaraabasho qaf Genyo sidaas oo kale way Super Cup FA Cup Jana Daoud laga qaraabanayo Genyona Arsene Wenger Genyo Arsene wax badan Arsenal hayay Genyona macna salaada wax badan hayay Arsene Wenger wuu ka tagay macna salaadna wuu ka tagay Ahmed Ali uu soo dheelahayo Arteta uu soo dheelahayo hadda waxa lamida idla yare hees weyn laga marabano hees waaweyn iyo hees oo sameesto oo asaga ma laga rabo FA Cup Jana Daoud amar hees hore loo qaaday laga qaraabooya hees oo hebel qaad hees nin inta qaad hees nin maqan qaad idla yare iyo Genyo iyo Arsenal oo isku mid FA Cup lay ka qaraabteen iyo Jana Daoud hees hore waa tageen sidoo kale waxaas barbardhig sameeyay kooxda dekada iyo kooxda City sida ogtaa waxaa la geliyay lacag badan macallin Guardiola qabtay laba horyaal ay qaaday kooxda dekada waxaa la geliyay lacag badan macallin yucali qabtay waxay qaaday 3 horyaal isku xog halka laba ka qaado kuwan 3 ay qaadeen waxaa lamid oo la barbar dhigay King Jama fanaanada ayadana shidan oo lacag isgelisay heeso ka baxay wiilkan ka baxay iyo ala soo qaaday saddexdoodu asraaceen waa isku mid waxba isma dhaamaan waa hal waxa wada saaray tarina wada saaray dekadan lacag la geliyay Man City lacag la geliyay King Jama lacag la geliyay waa hal meel ay ka wada baxeen waa tusaalooyinka waxa ay dhiman laba koox kala ismaal marar dhigay iyo milkiilayaashooda naadiga Chelsea ayadoo wararsan waxba ahayn waxa qabtay nin la dhaho Romanka oo u dhashay ganacsade weyn oo Ruushka u dhashaa kooxdii kooxo ka dhigay heer champion qaado Qatar Yurub ka qayb gasho magac yeelato hawada gasho kooxda Brandon Sports Club la dhijir hadda MCC la baxday la dhaho waxa qabtay gudoomiye Abuukar Maxamed Sheekh wuxuu galay booska Romanka Camar waa ninkii ugu horeeyay ciyaartoy ajnabiga kana dalka shaday horyaalka xamaasad u yeelay halkoo Drogba ka kansaday iyo Jeremy iyo Makelele ka kansaday Abuukar Maxamed Sheekh wuxuu keenay Marcel Thompson Iman iyo Maxwell oo kansaday sidoo kale kooxdii wuu shiray hawadu galiyay marka Chelsea iyo Brandon Sports Club MCC-na dhankaas ka sameeyeen waxa la mid ah Hodan Cabdiraxmaan ayakana Hodan Cabdiraxmaan laftigeeda waa ashitay waa aragtay America tag soo bax wixii la wareegtay Mursal Muuse ciyaaryahan cusub yani halkay Drogba kala soo wareegeen iyo Marcel Thompson Hodan Mursal Muuse la wareegtay caadi kooxda u dheeli jiray kala wareegtay marka waxa uu kooxaha meeshaas ka samay way sameeyeen dhanka kale Horseed ee Liverpool walow Liverpool sanadkii ka baxday laakiin 30 sano horyaal lama qaadan Liverpool waa la soo taagnaa 29 sano Horseed sidoo kale waa la soo taagnaa sanadkii Horseed Liverpool meesha ka qaaday Horseed sanadka u dhow ayada afis Macallin Abdijoon ayada soo afiyay Horseed oo jajabana waxa loo magacaabay Macallin Abdijoon uu kala kiciyay koox weyn oo ka dhigay Qatar oo ka dhigay Liverpool
wararsana waxaa loo dhiibay macalin Klopp koox weyn oo ka dhigay wuu kala kaciyay champion qaaday wuu ashiday ninkaas sidoo kale FA Cup Jana Daoud qaaday labada naadi meeshaas ka dhisnaa laakiin waxaa ka soo qaatay aniga waqtiga dheer 90kii markuu Maxamed Siyaad Barre dal ka tagay Liverpool iyo Horseed baahi ay waa isla socdeen waxa lamida fanaanada weyn Nimca Yaasiin Cabdi soo dhawaaw mid qaadis Nimca Yaasiin caraad lamida la tahay Liverpool iyo wax lamid tahay Liverpool iyo Horseed Nimca Yaasiin hal meel ay ka wada baxeen marka waxaa jira kooxo yar iyo fanaaniin yar oo sidoo kale isbarbar dhigo dalkeena inkastoo aan ku soo qaaday laakiin caalamka aan ku soo qaaday sida ogtaa 2017 waxaan weerariyay naadi Leicester horyaalkii qaadatay kaf hawada gashay bababa Leicester iyo waxa isku mid ah Ken Arash Leicester waa la isla waayay Ken Arash waa soo baxay kuma leedahay something iga tir dhididka Leicester loo raacayno Leicester asaga hal horyaal waa wada qaateen horyaal ay qaateen waa ku daayeen Ken Arash iyo Leicester waana weerariyay waa baxeen hadda meel ma ku sheegtaa waxa kale oo na soo galay nin loo Sharma Boy Aston Villa isku mid waay waxba isma dhaamaan tusaale Grealish wado ama Mingis wado xaa iga galateriyo ciyaal ku dhac Sharma Boy Aston Villa waa isla tunteen Aston Villa hadda hawada ku jirta koox fiican waay waa shidan tahay Sharma Boy waa shidan mar dhow waa israacayaan le tartiib waa xalulinayaan marka wax way isbarbar dhigadaas asamay iyo caawa ana cajiinka qasayo 5,000 kabsar caleen iyo shiishiid ku kan iyo mar dhow ari iska filay waa israacayaan le waxa marka waxa way qatartooda leedahay waxa kale oo ku haya waxa kale